السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري كسو دوادا مركلة فيديو كله oo aad u xiiso badan maanta halkan waxaan ku fiirinaynaa ciyaartii xalay Chelsea iyo Arsenal ay dheeleen. Wow, what a performance by Arsenal. Bro, Chelsea waqtiga gameka markuu inta uu bilaabanba Chelsea midfieldkooda Jorginho ayaa waxa la weydiiyay gamekan friendlyga ka waran markaas uu wuxuu dhahay waxaan friendly maaha adeer friendly ka weyn laakiin waxaa nasiib darro ah Chelsea fans inay leeyihiin friendly loo ahaa ciyaar saaxiibtinimo leh ahayd saaxiibtinimadee brother yaa ku soo gashay mataqaanaa Sterling dhacdhaco ku dheelay xiiqlihii Harvard ahaa ku dheelay ninkii la soo tooray magaciisa muxuu ahaa Vana ku dheelay oo balaayo cirka laga soo riday ah Gallagher iyo balaayo dhaxda ku soo gashay laakiin Arsenal maxay sameeyeen mataqaanaa serious business brother Arsenal waxyaabaha qaar kama kaftanto North London dadkan derby isku tihiin waxa isku tihiin dad cadow isku tihiin waa isfiirsataan inaa sida dabada u furfurato oo sida Arsenal ku yaacyaacdo bro Arsenal waa u gaartay bro Arsenal kolka hore weligeed waa ka adkeed horta Chelsea waa ka adkeed weligeed Arsenal weligeed season kor waa ogtii waa kankii ka horeeyay waa ila marnay haddana waa idin soo marnay caadi xaafadaha ciyaalka xaafadaha idinku waa tartiibto raali ahasha idin ku agmarnaa waa idin ku soo marnaa laakiin gamekan halka xiisada uu kaleey mataqaanaa friendly Florida Cup yara la isku siinahay oo Cup saaxiibtinimo waxaas la isku siinahay hase ahaatee Chelsea markii la garaacay kadib inaa dhahdaan saaxiibtinimo ahayd haddana iyadoo waliba teamka la ciyaaraysa inay Arsenal ay tahay oo is dhistay oo business ku jirto Premier League na uu ku dhiman yahay 2 weeks ina sidaas oo dhan dabada u farato difaac Koulibaly hadda la keenay yaa ninkaas ciyaarta 90 minutes waxa la horta dadka daawanaya Arsenal hadda dhageysanayay dadka Chelsea fans oo falanqeynay dadkan gaaladana dhageysanayay waxa la Koulibaly lama arkin Koulibaly 90 minutes ciyaarta markay dhamaatay markii la islaamay la arkaa la soo caayay dadka salaamay mooy Koulibaly oo ciyaar dheelayo wax difaacanay lama arkin ba goolkii koowaad baas qurux badan Xhaka xagiiski imaaday Gabriel Jesus ay gacantu uga gashay abuu ciil uu qaba ciil Chelsea kolka hore waa hore ku nacbay ninkan Sterling oo kor imaado markuu arkeen waa xanaaq waa ka sii dareeyay jiib uu ka dulqaaday xisnimadiisa wiiw waa ku jirtay abuu maarta wiiw alla niyo macaan badan hadan qaabka oo qaaday ay ciyaartii waa socotay hadana Brazilian kala baasha lugta uga shadana alla Brazilian kan iyo dib badan meel xun ay baloonta ka bixinayaan Gabriel Martinelli baloonta dhiiw hadana ka dhax bixiyay difaaciyada taagan oo dhagaado meel uu ka soo baxay kaalashay xaguu ka soo xaluusho lugta uga shubixi la kale dhag waa ku jirtay Chelsea 2-2 Chelsea saas u fiiray war ma London aan joognaa mise xagee Soomaaliya ku dheelayna waa la garan waayay meesha lagu dheelay waa laga socday Xhaka soo noqday brother ay Xhaka horta ciyaarihiisa wax loo soo sheegay waa garan la daraan interview wuxuu dhahay saaxiib haduu Arteta ahaan lahayn teamkan waa iskaga tagi lahaa teamkan iyo fanskiisa waa aslan wuxuu dhahay markay inaceen laakiin saaxiib ninkan ay soo celiyo dhahay niyadana ii dhisay waa la ogtiin mar walba oo ka shida asaga Man United iyo Chelsea waa necib yahay intii xariifka laga dulqaaday waa xariifa bano intii laga dulqaatay fajishmiyo ma arkin ma xasuustay intii laga dulqaatay darbo waalana la qaatay Mendy waa qaban waay waa soo tufay waxa qabsaday kii kale Saka trainee lagu ka dhigay ciyaartii waa isku socotay aroorta adan ku soo dhisayna aniga waji aan leena malahan waxa idin keenna hadana Lokonga idin keenna funaanadu idin ku siibtay waxay dhawaalan intuu gale iyo funaanadu idin ku siibtay Chelsea horta ani waxa hadda asaa idin ku siib fakada malahan waa iska ogtiin waa idan marawaan idin soo maraa aniga ciilka ah waxa waay Man City ina arka Arsenal ayadoo ku tumanaysa iyo Liverpool Man City Liverpool waa dadka ciilka u qabaani United iyo Chelsea wax aan u qabo malahan saacadii gamekan ayaa idin tusaya Arsenal iyo Chelsea first half iyo second half waxa dhacay sida uu ogaataan Arsenal qaabkay u soo noqotay iyo Chelsea weakness-keeda iyo waxa ku dhacay ayaa idin tusi doonaa bal ila fiiriyo meeshan marka koowaad line up ka teamka ay ku soo galeen waa kuwana Chelsea waxay wadatay goalkeeper Mendy James Red ba ka wadatay Sendepaga Koulibaly odayga hadda la keenay ee maanta meel uu ku maqnaa la garan lahayd iyo Silva iyo Emerson Gallagher iyo Jorginho Harvard Mount Sterling and Vana strong lineup ay meesha ku soo galeen Arsenal Ramsdale Zinchenko waa dad business u jiray u socdaya Zinchenko daraad la keenay laba habeen bisu Arsenal la bariyay habeen iyo maalin iyo half oo Arsenal la bariyay waa lagu soo qabtay serious business
fant iyo Gabriel Saliba oo dhagax ah oo gamekan lagu amaanayay standout performance soo bandhigay. White garab u dheelayay right back. Partey iyo Xhaka, Martinelli, Odegaard iyo Saka iyo Jesus hore taagnaa brother fant. Marka halka aan rabo waa kana sida ay ciyaarta u dhacday. Arsenal how dominant they are. First half-ki Arsenal banoonta ayada way haysatay sida u badnayd 56 ball possession Arsenal ayaa wadatay, halka Chelsea ay 44 ay ka wadatay percent. Goal attempts Arsenal fiiriya 6 ay wadatay, Tottenham 2 ay wadatay. Shot on goals Arsenal waxay wadataa 4 ay ku aadisay goolka Chelsea. Laba waaba gashay horta labana waa laga save gareeyay. First half waxay ku dhamaatay 2 oo maleena inay ku dhamaatay. Chelsea 2 ay ka wadataa. Shot of goals Arsenal laba dulmar say Chelsea waxa maysan qaadanin binaanka ka tagneed. Block shot 0-0 laga wataa. Offside iskaga soo tag, throw-in goalkeeper waxa iskaga soo tag 2 ay save gareeyeen. Attacks imagine meeshan fiiriya attacks Arsenal 57 jeer ay soo weerartay Chelsea. Imagine Chelsea waxay soo weerartay Arsenal 37 jeer, halka dangerous attack Arsenal uu ahaa out of 57 kaas 45 times ay dangerous bro. waa first half kali 45 times. meeshaas yaa taagnaa brother, meesha yaa taagnaa, meesha yaa lagu aaminay, meesha aan waa garan lahaa qofku taagnaa difaaca madaxweynaha Soomaaliya meesha taagnaa waa garan waayay iyo kan Kenya ma aqaan wuxuu taagnaa meesha Chelsea. Dangerous attack. That is first half. Second half afiirana hadana difference-ga labadan team xalay u dhaxeeyay fiiriya. Chelsea waa soo noqotay second half ball possession Arsenal banoonta ay la qaybsatay ilaa hada goal attempts Arsenal waxa hadana second half marka ay soo noqotay 4 mar goolkooda la booqday Chelsea, halka ay ayaga Arsenal goolkooda ay loo mar soo booqdeen. Shots wali nil ay ka wataan, hal xab waa qaadan waayeen. Arsenal 3 shot ay qaadatay oo on target la soo celinay oo goalkeeper soo tufay. Mendy meesha shaqo xalay ku hay ka soo soco. Hadana waxa imaataa kii kala attacks Chelsea waa fiicnaayeen second half 58 ay soo qaadeen, laakiin dibkooda ma taqaana 33 attacking dangerous. Arsenal wali waxay ku darsadeen 22 kolka hore ay 50 something ay sameeyeen second half ay hadana ku darsadeen. Overall match marka aan dhahno Arsenal 53 ball possession ay wadatay, labada dhinac oo ka Chelsea waa laga haystay. Arsenal good attempts 10 times ay goolka Chelsea ay soo muuqdeen, areadiis ay ka soo muuqdeen oo inta shot ay qaadanayeen weerar ay ahaayeen. weerarkoodana wuxuu tagay markii la isku dardara 98 times ay Chelsea soo weerartay. weerareen Arsenal waa yaabana teamka Premier League oo yar xitaa sas loo weeraro, halka ayaga 95 ay soo qaateen. Arsenal 67 times ay dangerous ahaayeen oo loo maleeyo inay gool xiri lahaayeen. waxa soo darbe ay tuureen hadii gal lahayn xalay Chelsea waxa u maleeyaa 67 gool laga dhalina fan waa iska leeyahay waxaas. laakiin waa Arsenal 67 times ay dangerous attack soo qaadeen, ayagana 58 soo qaadeen. akhyari xalay ciyaarta saas u jirtay, marsiya ma ahan kii kale friendly u ahaa brother. meeshan labada team mar walba cadow isku yihiin, waa rivalsna weliga la isku ma dhigo. asaatee Chelsea waxa ay leedahay dhib ma lahan, waa kulay waa ka akhrisanaysaan. waxa la maqaana hadii juku ugu dhacdo doqonku baa ka aamusan oo 10 ayaa laga qaataa. marka 10 ka qaadanaysaan Koulibalyga 30 ka soo bixiseen ila ku xumeynaysan aniga ma garanayn, laakiin waxa ay dhihi lahaa ninkaas hadda free ku dira intuu sabalaay hadhow garoonka la imaan hadda iska dira. khiyaari aad u mahadsantihiin. ciyaarteena caawa iyo falanqeynteedana waa naga inta. anaga iloobina like, share and subscribe. kuna socda Arsenal fans waxa idan leedahay season-kan si rabtaan si la idin celin rabaa ya bas waxaan dhool cadeen giga dhool tusle waa intaan dhahdaan ya dhow sidii ciidankeen markay baash isku daadatana meesha ka baxdeen la garan waayay rabtaan. adan waa arki doonaa season-ka bilowdo 2 weeks bisa naga xigto waana wada socon doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.